in si aan horumarka aan gaarno u xajisano aeroboortka aan hadda joogno oo ah aeroboortkii ugu muhiimsanaa uguna weynaa dalkeena arrimaha aan isleeyahay xogaa muuqaalkiisana way hagaajinaysaa amnigiisana way hagaajinaysaa oo ku saabsan baakinka wax laga bedelo dabcan maanta oo kale ama yacni dadkii mas-uuliyiinta ahaa inta halkan lagu infaadgareeyay mooye inteeda kale waa adag tahay inay soo gaarto maanta aeroboortka ama soo gasho ama ay hesho meel ay baakin ka dhigato waxaan xogogaal u nahay in waa cillad haddii aan wax laga qabanna cillad ugu keeni karta ama horumarka aan gaarno wax u dhimi karta haddii aan xal loo helin xogaa waa soo yarada ahay waxaa ii muuqanaysay in uu jiro cariiri fara badan oo ku aadan dad fara badan oo soo wacay oo aada u cabanayo hay-adaha amniga ka cabanaya anugu xogogaalaan u ahaa in munaasabadan darteed ay dhici karto xoogaa inuu u yimaado cariiri laakiin inta badan wuu dhacaa cariirigaasi dhowr jeerna wasiir duraan waa iska aragnay axmed macalin maariyaha waa iska aragnay laakiin guudaan filaya ha laala ahaadaya dabcan arrintaasi waa arrin u baahan in xal degdega loo helo ujeedka aan u xusay waxay tahay aadaan ugu faraxsannahay inaan gaarno horumarkan oo kale laakiin haddana inaan xajisanaan u baahanaa laa qadar allah wax yaroo incidenti ahoo baakinka ama baabuurta aada ugu dhow terminaalka ama ranwayga ugu dhow haddii ay si aan ay wax u dhacaan lama filaan wax ku keeni kara waaye marka waxaan ku boorinayaa wasaaradda aviationka iyo hay-adda civil aviationka iyo taliya xijaarba inay siiyaan mudnaan gaar ah intaa kadib mar labaad waxaan u hambalyeynayaa wasaaradda aviationka iyo shirkadda freedom airlines oo fursaddan hesha waxaan rajaynayaa in shirkadaha soomaalidu ay leeyihiin ay fursado sidaas oo kale ah ay heli doonaan waxaa jira dabcan marka aada ku dhoofaysid ama aada ku duulaysid license isaan oo kale ah oo ay bixisay dowladda soomaaliya waxaad leedahay privileges oo ayaan lahayn diyaaradaha kale oo ku duulaya certificate-ka ama laysimada ay bixiyeen dowlado kale diyaarado yacni waxaa jiray diyaarado fara badan oo soomaaliya leeyihiin laakiin meelo kale ka diiwaan gashnaa jira sababay ugu diiwaan gashnaayeena waxa waaye waxayaan heli karin ama ay ku qasbanaayeen si ay u helaan ruqsad ay ku dhoofaan inay ka qaataan ama outsourcingkas ka sameeyaan waddamo kale saas daraaddeed waxay ku waayi jireen privilegeski ama waxyaabihii ay ka faa'iidi lahaayeen maanta waa fursad fiican waa u hambalyeynaynaa waana hubaa inay aada ugu faraxsan yihiin shirkadaha soomaalida ahi inay helaan fursaddan oo kale waxaan